kulanti wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaha dunida ee kusoo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogaha diblomaasiyadda ee degal kasta. barnaamijkeenan waxaan kusoo gudbin doonaa xiisadda Russia iyo NATO iyo Ukraine oo cirka isku shareertay. Russia oo markii ugu horeysay qiratay duulaan military oo ay ku qaadayso dalka Ukraine isla markaana ku xidhay shuruudo aan macquul ahayn iyo xogo kale ayaanu diisoo gudbin doonaa. Russia ayaa dalbatay in la xadido dhaqdhaqaaqyada isbahaysiga military ee NATO ee hogaaminayo Mareykanka ee ka socda dalka dariska la Russia. waxaa sii kordhaya xiisadda u dhaxaysa Russia iyo dalalka reer galbeedka kaasi oo cabsi laga qabo in Russia ay qorsheynayso in duulaan military ay ku qaado dalka dariska la ee Ukraine. Ruushku waxa uu diiday arrintaasi balse wuxuu sheegay in NATO ay tahay in ay meesha ka saarto Ukraine iyo kuwa kaleba in weligood ay ku biiraan NATO si xaaladda loo dejiyo. Moscow ayaa sheegtay inay doonayso wadahadal degdeg ah oo ay la yeelato Mareykanka, laakiin soo jeedinteeda ayaa loo arkaa mid aan macquul ahayn. Washington isagoo ka jawaabaya baaqa Moscow ee ah wadaxaajo toos ah oo Russia ay la yeelato Mareykanka, afhayeenka aqalka cad oo la hadlayay warfidiyeenada wuxuu sheegay ma dhici doonto wadahadal ku saabsan ammaanka Yurub haddii aan la helin go'aan xulfada Yurub iyo saaxiibadeenna. NATO oo markii hore loo aas-aasay in Yurub ay ka difaacdo khataraha suurtagalka ah ee ka iman kara midowgii Sofiyeed ee hore, waxay ciidamo ka joogaan dalalka Baltiga iyo Poland. wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Russia Sergey Ryabkov ayaa sheegay in Moscow oo Mareykanka iyo NATO uu siiyey laba dalab oo qabyo ah. ma jiraan doorasho kale ayuu yidhi maadaama xaaladda xidhiirka ka dhexeeya Russia iyo galbeedka ay tahay kalsooni darro. soo jeedinta Ruushku waxay dejisay shuruudo adag oo Mareykanku uu sheegay inaysan ahayn kuwo sinaba u dhici kara, waxaana ka mid ah in loo baahan yahay in dalalka ku biiraya NATO burburkii midowgii Sofiyeed kadib in aan la geyn ciidamo iyo hub sida meelaha loo arki karo in khatar ay ku yihiin Russia. diyaaradaha ee wax duqeeya iyo maraakiibta dagaalka looma ogolaan doono meelaha ka baxsan hawadooda ama biyaha ay ka soo weerari karaan Russia ayuu sheegay Ruushku. taasi waxay la macno tahay in NATO haba yaraatee wax doora aysan ka ciyaari karin mid ka mid ah saddexda jamhuuriyadood ee Baltiga ama Poland. NATOna waa inay ka tanaasulaan qorshaha Ukraine iyo Georgia si ugu dambeyntii ay ugu biiraan xulafada reer galbeedka. suurtagal maahan in la qiyaaso in Mareykanka iyo NATO ay saxiixaan dukumiintiyadani ee uu dalbaday Russia. Ruushka oo dalbanaya diidmada qayaxan cidda ku biiraysa isbahaysiga ururka gaashaanbuurta NATO ayaa marar badani oo hore waxay sheegtay in Moscow aysan wax go'aan ah ku yeelan karin cidda xubin ka noqonaysa. waxaa intaa dheer in Ruushku uu doonayo in saacado gudahood uu dib ugu celiyo dunida 1997 dal kasta oo ku biiray gaashaanbuurta NATO taariikhda kadib looma ogolaan doono ciidamada NATO ama hub, taas oo aysan ahayn mid macquula. dowladaha Baltiga oo u arka Ruushka inay khatar ku tahay amnigooda. Moscow ayaa si fiican u og in ay dalbanayso waxyaabo reer galbeedku aysan macquul ahayn inay aqbalaan. khubarada ayaa ku tilmaamay gorgortanka noocan oo kale ah ee Moscow inay tahay mid ay doonayso inay hesho tanaasulaad adag oo ay uga tanaasusho weerar military oo ay ku qaado Ukraine, ama waxaa laga yaabaa Moscow inay ugu tala gashay soo jiidashada ee gudaha si loogu qanciyo dadweynaha Russia in xiisadda sii kordhaysa ee u dhaxaysa Russia iyo galbeedka aysan ahayn khaladka Moscow. Ruushka ayaa ku duulay Georgia 2008 wuxuuna Crimea ka qabsaday Ukraine 2014 ka hor inta uusan taageerin go'aan ee bariga Ukraine. colaadda bariga Ukraine ayaa bilaabatay bishii Abriil 2014 waxaana ku dhintay in ka badan 14,000 oo qof iyadoo weli ay jiraan khasaaraha dhimashada ee isdaba joogga. si kastaba isku dhafka ciidamada Russia iyo kooxaha go'aan ee xuduudaha Ukraine dhawaanahan waxay abuureen cabsi laga qabo duulaan kale oo Ruushku uu sameeyo. hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa digniin ka soo saaray
shirkii khamiistii in gardarro kasta ay yeelan doonto cawaaqib xumo oo aad u weyn, waxayna ka hadleen tallaabooyinka xadidan iyagoo ku baaqaya dadaallo diblomaasiyadeed oo lagu xallinayo korarka xiisaddani. midowda Yurub ayaa dalbaday in diblomaasiyaddu ay diiradda saarto wadahadal afargeesooda oo u dhexeeya Paris, Berlin, Kiev iyo Moscow. ruushku wuxuu si cad u doorbiday in diiradda uu saaro wadahadallada ee uu la leeyahay Maraykanka. xogayaha guud ee gaashaanbuurta neeto ayaa ka digay in ruushku uu sii kordhiyo oo aan la dhimin ciidamadooda ku sugan xadka, ciidanka diyaarsan ee dagaalka, taangiyada, madaafiicda iyo cutubyada gaashaaman iyo diyaaradaha aan duuliye lahayn iyo hababka dagaalka elektarooniga. si kastaba, iyadoo ay si soo tarayaan digniinaha reer galbeedka ee loo jeedinayo Moscow cawaaqib xumada ka dhalan kara duulaan suurtagalka ah ee lagu qaado dhulka Ukraine, siday sheegeen wararka ka imaanaya Maraykanka waxay sheegayaan in madaxweynaha Maraykanka uu ku booriyey xulfadiisa midowda Yurub in ay dardar geliyaan qorshe cunaqabatayn ah oo looga hortagayo tallaabooyinka militari ee Moscow. Jaridda Bloomberg oo soo xiganaysa ilo diblomaasiyadeed ayaa sheegtay in maamulka Maraykanka uu ku booriyey midowda Yurub inay u diyaar garoobaan tallaabooyin lagu beegsanayo bangiyada Ruushka iyo shirkadaha tamarta haddii Ruushku uu duulaan ku qaado dalka Ukraine. dhankeeda, madaxa komishanka ee midowda Yurub ayaa sheegtay in midowda Yurub uu diyaar u yahay cunaqabatayn qaali ah oo lagu soo rogo Moscow haddii uu soo galo Ukraine. shir jaraa'id kadib, madaxa midowda Yurub ee Brussels ayaa yidhi shaki kuma jiro haddii Ruushku uu u dhaqaaqo Ukraine, midowda Yurub wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ku soo rogo cunaqabatayn ka iman karta. dhankiisana, afhayeenka Kremlin ayaa carabka ku adkeeyey in siyaasadda cunaqabataynta ee uu wado midowda Yurub aysan gaadhin hadafkii laga rabay. afhayeenka aqalka Kremlin ee Ruushka wuxuu sheegay in Ruushku si waafi ah uu la qabsaday cunaqabataynada iyo inuu haysto xirmooyin buuxa oo ah tallaabooyin aargoosi ah oo uga jawaabayo. Peskov ayaa intaa ku daray in Moscow weli ay u aragto cunaqabataynada sharci darrada ah marka loo eego aragtida sharciga caalamiga ah, ma aysan gaadhin wax hadafa. iyadoo dhanka kale, askari Ukraine ay toogteen kooxda go'aan-goosadka ah ee taageera Moscow. dhaawaca askari kale ayaa loo qaaday isbitaal si loogu dabiibo taas oo ka dhigaysa tirada askarta Ukraine ee lagu dilay tan iyo xabad joojintii Donbass 66 askari, halka 262 kale lagu dhaawacay. wasaaradda difaaca ee Ukraine ayaa sheegtay in kooxda go'aan-goosadka ah ay ku xadgudbeen xabad joojintii